Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Xasan Mudane, agaasimaha guud ee Baraarug Library. Waxaan rabaa inaan idin tuso laba shaqo oo la xiriirta maktabadda. Midda koowaad waxay tahay marka aad maktabadda kusoo biirto, sida aad ula soo degi karto buugaagta ku hareeraysan maktabadda ama buugaagta maktabadda ku jirta, maqaalada iyo buugaagta maktabadda ku kaydsan sida ula soo degi lahayd. Mid waa taas. Midda labaadna waxay tahay inaan idin baro sida aad maktabadda usoo gelin karto buugaagta iyo maqaalada. Labada shaqaan raba inaan idin tuso oo aad caadi u aragtaan si hadhow aysan idin dhibin. Ani hadda computer aan uga jiraa. Marka aad computer uga jirto iyo marka aad mobile uga jirto way kala duwan tahay. Marka midda computerka aan idin tusaa. Maktabadda markaa saan gudaha usoo gasho, ujeedaa Facebookana wuxuu ku sameeyey update uu ku sameeyey almost Facebook wuu isbedelay. Isbuucyadii lasoo dhaafay waa la update garay. Marka qaabkan u ekaana marka soo gashid dhinaca markaad fiirisid waxaa ku qoran meeshan waa marka inta ku dhufanaysid waa iska fahmi kartaan oo maktabadda wax ku saabsan iyo waxa ay tahay iyo vision iyo ujeedadeeda waaye. Qaybtana waa qaybtii caadigeeda oo discussionkeeda oo buugaagtii iyo qoraaladii iyo maqaaladii iyo wixii meelihii ku jireen. qaybtan memberska marka qaybtan waa iska events badana tan ma isticmaalno marka tan waa iska media linkiyada wixii la soo dhigo meesha marka waa meesha fileska ay ku jiraan lacala hadda rabto inaad buugaagta aad rabto inaad fiiriso marka qaybtan fileska ku dhufanaysaa qaybtan marka waa liiska dhan ay imaanaya buugaagta maktabadda wixii wax alaal wixii buugaag ah oo PDF iyo maqaal ah iyo report ah oo dhan intay ku jiraan wixii dhan intay ku xareysan yihiin meeshan ku xareysan yihiin marka hadda rabto kala kan lacala oo fiirinay mogtahay kan oo kale hadda aad u baahan tahay inaad la soo degto waxaad samaynaysaa qaybtan aadaysaa meeshaan aad tegaysaa halkaan ku dhufanay ujeedadu download ku qor hadda rabto qofka waxa soo geliyay macnaha qofka raba postiga hadda rabto inaad ogaatid qofka soo dhiga hadda rabto inaad aragtidna halkaan ku dhufanay si original post marka download oo kale leedahay hadda download soo dejinayna wareegana ujeedin wareegana soo degaa marka waa ujeedin meeshaan ka soo degay betrayal of the intellectual ujeedaa uu soo degay oo ku dhufanay marka waa ku yimaada ujeedin the article betrayal aan u laabana marka qaybtan waa mid waa marka inaad fileka ku dhufato mid kalena waa samayn kartaa oo aad u fudud oo xitaa ani aan isticmaalo midaas waxay tahay maktabadda markaa saan usoo gasho waxaa laga yaabaa maktabadda inay ku jiraan masalan almost maktabadda 5 sano way samaysan tahay way dhisan tahay marka 4 sano ka hor book la soo geliyo u aragta inaad maktabadda ka dhex baarato marka buugga magaciisa raadinaysaa magaciisa haysataa laakiin meeshan search button-ka ku qoranta mujida meeshan search button-kaas ku dhufanaysaa search button-ka waxa waaye maktabadda waxa ku dhex jira ka dhex raadso wax alaalo inta post walba la soo dhigay maktabadda waa ka dhex raadin kartaa marka waxa waa laba mid oo kuu banaan marka labada mid oo kuu banaan waxa waaye mid inaad wax la yiraahdo ii sheeg wax la yiraahdo keyword ama inaad xaraf ku raadiso ama inaad magaca buugga aad qorto tusaale buugga uu qoray Paul Collier The Bottom Billion waxaad samayn kartaa The Bottom Billion waa qori kartaa kadib enter aad leedahay The Billion waa qori marka buug magaciisa title ciwaanka qoray ciwaanka qorto wuxuu keenaa wax alaala post walba oo la soo dhigay oo The Bottom Billion ay ku qoran tahay waa ka dhex raadinaya hadda kan qoraal waa ma la rabo kan waa muuqaal waa lama rabo kana iska qoraal la buugga loo baahan yahay buugga raadinaysa kan ayadan looma baahno kana looma baahno waa kana marka ujeedo The Bottom Billion yarkan qofkan soo dhigay Cabdullaahi Naadi soo dhigay almost 2018 19 April 18 soo dhigay marka daarad marka saano marka kugu soo baxo daarad inta ku dhufanaysaa caadi inta ku dul dhufanay bottom-ka mujida ku dul dhufanay caadi ugu dul dhufanay oo ku soo degaa mujida fiirin uu soo degoya The Bottom Billion buugga Paul Collier soo degoya wakaas okay uu soo dego jidin dan hadda markaas waa soo download garaysanaysa meesha kugu jiraysa marka aan ku celiyo haddana waxaa samaynaysaa qaybta discussion tag
because qaybtan search-ga muhiim waay ku dhufo marka ku dhufto waxaa sameynaya okay magaca buugga waa weysaba hadda example like waxaan leenahay waxa la yidhaha extra waxa la yidhahda ii sheeg mani camal aan qorayna ma ku jira fiiriya soo diidaa ama xarafka extra ujeedaa wax walba buuggan maadaama kelmadda money aan isticmaal lacag aan isticmaalay keywords oo isticmaalayo erayuu raadinaya marka waxaan leenahay waa ka raadinaynaa waxaan leenahay example like waxaan rabnaa inaan baarno buug marka buugga gudaha ma wada gelinaysid marka yani buugga dhan ma wada qoraysid waxaa laga yaabaa inuusan buugga wada qornin marka xaraf aan ku raadinay example like anigu hadda waxaan rabaa inaan raadiyo buug la dhaho buug ka sheekeynaya foreign policy marka waxaan leeyahay example like foreign camal aan qoraa si foreign policy markaa qortid waa raadinaysaa surgeon dhehe waxaan hadda buuggan aan ku imaanaa mujida foreign policy analysis buug kale waa ayadan source of foreign waxa la yidhaha policy behavior ayadana buug kale waa si politics of foreign you see waxa dhan aa imaanaya dib u laabta hal mar dib kuu celiyo tag inta ku dhufo masalan waxay baan ogtahay carabta inaad raadiso buug ka sheekeynaya research methodology la iskaga qoray marka keyword oo mogta buug research methodology ku qoray methodology ku qoray waa kana mujida research methodology step by step si haddana another research kale meel buug kale another book kale kan buug ma lak waa article qoraal la qoro waay see those are the research you see research methodology hadara waa ciwaano research methodology you see research ada kelmadda la ku qoray keywords la ku raadinaysaa qaybtan waxaa waay sida maktabadda waqti ku jira aa uga dhex baaranayso qaybta labaad u gudbaynaa part 2 waxaa waaye saad maktabadda buug usoo gelin ama qoraal ama article aa usoo gelin karta markaad gudaha usoo gasho maktabadda oo qaybtan aad joogto discussion aad joogto halkaan ku dhufan meesha wax la soo geliyo ila mugta computer ka soo galaysaa halkaan ka soo dhigaysaa marka inta aad ku dhufatid meesha wax lagu qoraa waa mugta مثلا ciwaanka buugga kale waxaa ku qoraysaa intaa ku qoraysaa example like waxaa leedahay waxaan rabaa inaad soo geliyo maqaal article la dhaho Jubaland and its inhabitants waxaan qoray waxaa qoray nin la dhaho nin Ingiriis ah qoray oo nin Ingiriis la yiraahdo kana qoray oo ah ii sheeg maxaa la lahaa dadkan oo ii sheeg Soomaaliga okay buugga marka this book ma waa article kana rabaa inaad soo geliyo marka inta markaa ku qorto ciwaanka article-ka buugga marka ciwaanka marka meeshan ku qorato halkaan la tegaysaa meel mo ay ku qoran meel ay ku qoran tahay add file ku dhufanaysaa juice ku leeyahay juice ku dhufanay inta email waxaa leedahay waa kaas waa ku diyaarsan mujido ku dhufanaysaa ku dhufta cabaar uu soconaa kadibna si uu soconaa cabaar uu soconaa waxaa leedahay posting oo ujeedii Soomaa u baan inuu la soo dego halkaan ku dhufanaa inta la ku dhufanaa daarta inaa la soo dego daartaana ku dhufanaysa oo ku soo degaa taas marka qaabka loo soo geliyo midka dadka mobilada isticmaalana qaab kale isticmaalaan laakiin marka computer kaga jirta qaabkan waa halkaan ku dhufanaysaa wax la yiraahdo ciwaanka waxa ku dhufanaysaa ii sheeg meeshaan waxa ku qoraysaa ciwaanka Journey Across Jubaland ninkaan qoray
RE okay intaa ku dhufanaysaa qaybta more aad tegaysaa kadibna waxaa ku dhufanaysaa kadibna halkaan ku dhufanaya choose file markaas mujida a journey across Jubaland meesha uu geenaa meesha fileka uu ku yaala aan hadda downloadkii yaalin documentiska waxaan rabaa inaan soo mararka desktop inay ku yaalin suuragala laakiin ani downloadkii ii yaalin marka ku dhufanaysaa mujida uu soconaa inta posting uu keenayo sug marka intuu ka dhameenayo labada maqaalba ninkaan aan qoray ninkaan nin ingiriis waxaa waaye waxaa la yidhaha sahan kelmadda aan raadinaya taas ahayd dadka sahanka loo dirsado la dhaho halkaas noo soo saxmi noo soo fiirfiiri marka Jubbaland loo diray ingiriiska u diray inuu Jubbaland dadka degan iyo se u yaalin iyo inuu soo saxmo jawaasiis camal u ahaa ka halkaan aan ku dhufanay post meel ku qorata ku jira wixii uu dhameeyay marka shaqadu ku dhameeyay postingka ku dhufanay kaligaa si a journey across Jubbaland ayadana waa soo dhigay labada article bisana ku soo dhigay hadda ujeeda yar ay dhaan Faatix Cabdiraxmaan Faatix aad wuxuu soo dhigay maktabada dadku wuxuu kamid yahay aad wuxuu soo dhigay hadda Faatix wuxuu kale tiis inaa approve gareey waaye finding postiga dadka adminka bas u furan tahay shaqadan qof walba uma furan marka how to end this negotiated okay waxaan tagnaa qaybtan discussion-ka taga waa kana marka intaasaan raba inaan muuqaalkan idinkula wadaago intaasaan raba inaan idinla wadaago dhinacan haddaad fiirisaan wajia recent filekan ku qoran oo la dhigi kartaa darka ku dhufane dhinacana de waa macluumaadkii maktabadda qabka samaysnaa intan waxaa waa recent media macnaha bugaagtii wixii lasoo gelgelinaa waaye yani waa la update gareeyay almost maktabadda awal saan ma ahan laakiin hadda updated ah wixii macnaha way Facebook wuxuu ku sameeyay wuu update garay marka hadda aad u diyaarsan waa mahadsantihiin intaas raba inaan idinku soo koobo I hope ciddii su'aal qabto way weydiin kartaa muuqaaladan oo kalena inaan idinku badin waa si maktabadda ay u fahmaan sida wax loo soo dhigo waxna looga raacsado waxna looga dhex barto waa mahadsantihiin halkaas waan kusoo gabagabeynaa